السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخوات رجع أكاديمي يحضر فيديو سكر دونا وهذا السلامية. وحنوص عندنا تحنين يوم عشرين نقص بسنة كيوبشن 10 كيس اللحاد أو نقطة دونا فرقيga dhexeeya forex iyo option iyo sidoo kale binery iyo digital haddii aan comparison ku sameyno option iyo forex waxyaabaha mainly-ga ah ay ku kala duwan yihiin difference-ka kala yihiin iyo qodobada ugu muhiimsan ay iskaga mid yihiin iyo kuwa kala duwan yihiinba farqiga u dhexeeya forex iyo option inaga oo comparison qodob opposite-kiisa qodobka kale waxa ku kala duwan ay dhigi doona forex ku bartaan yaala iyo option ku bartaan yaala haddii forex qodobka koowaad ku bilowno forex adiga xadidi kara khasaaraha iyo faa'iidadaada oo sida la wada ogsoon forex ada khasaaraha suuqa bartaad kaga baxaysid khasaaraha markuu gaadho kaga baxaysid iyo barta aad faa'iidadaada inta wadan karaysid inta ku joojin karaysid labadaba adiga gacantaada ku samayn karaya oo ku order garan karaya sidoo kale option mar walba waxa ku xukumaya time-ka aad gasho trade-ka kaasoo khasaara iyo faa'iidaba ay ku xiran tahay oo sida wada ogsoonahay option haddii aad maanta $1 milyan ku gashay 1 minute ama 5 second ka wixii ka dambeeya halkaaga $1 milyan la baxaysa haddaad $1 ku gashay halkaaga $1 la baxaysa mar walba lodka ama lacagtaada la gashid waqtiga time frame-kaaga ayaaba ku xiran tahay halka ay forex-na kaga xiran tahay bibis aad sugaysid baaxsanaysid oo inta bibu suuq ku dhaqaaqaad sugaysid kan laakiin waqti baad marka analysis-kaaga uu ku saxsan yahay faa'iido wanaagsan baad ka qabanaysaa laakiin haddii aad istiraatiijiyad khaldan amba ay wax ka khaldeen barashada cilmigan aad buu khasaaraysaa laakiin haddii cilmiga si wanaagsan bartid aad buu uga faa'iidaysaa time-kaaga ku xiran tahay waqti fara badan ma sugaysid oo time frame-kaaga marba ku xiran tahay faa'iidada khasaaraha waa option forex lutaska uu leeyahay waa ilaa iyo 0.1 yaabad ku gali karaysaa suuqa oo wuxuu leeyahay lutaasi kala duwan ama wuxuu leeyahay category sida mini micro standard wuxuu leeyahay waxaana ugu yar waxa weeyaan 0.001 yaad la gali kartaa suuq halka option $1 oo ugu yar helo taska amba lacagta la gali karayo $1 ugu yar tahay maadaama kan wuxuu 0.00 waxa wankan waxa ugu yar yahay waxa weeyaan yani bibis baa la yaaba hadhow tole profit-kaaga aad ku xisaabtanaysaa inta bibis ku dhaqaaqo laakiin xaggan option $1 waxa looga dhigay inuu ugu yaraado time frame baa mar walba ku xirayana sida daraaddeed time frame hadduu ku xirayo 0.001 waa laga daayay qiyaas foomka yaaba kolay xigmad xagga uga jeeda laakiin saan malaynayno maadaama uu time frame uu ku xiran yahay saas halka $1 uga dhigeen sida wada ogsoonahay forex waxa laga ganacsadaa waa 5 cisho oo kaliya amba uu free 5 days buu free yahay oo 5 cisho 2 cishona waa la nastaa halka option uu 7 cisho usbuucaba uu free yahay 7 cisho usbuucaba uu free labada cisho uu forex ku xiran waxa loo yaqaanaa OTC baa loo yaqaanaa ama off counter waxa loo yaqaano weeyaan labada cisho oo waxyaaba faa'iidooyinka uu dheer yahay forex-ka weeyaan oo mar walba every day 24 hour xilliga duntada soo galaysaa suuqu qaybeen xanaadaan laga yaabaa laakiin qaybaha aanu mainly aanu ka ganacsan doono binery-ga digital-ka 4 saaca usbuuca way furan yihiin oo helaysaa available weeyaan labada cisho suuqa uu ka xidhay forex-kan waxa loo yaqaanaa off counter amba OTC haddii aynu qodobkeenii labaad aynu gudagallo oo noqon doona farqiga u dhexeeya binery iyo digital inaga oo comparison ku samayn doona in badan mid dadku isweydiiyaan amba akhristu isweydiisaa qofku markuu ku cusub yahay binery digital talo maxay ku kala duwan yihiin marka waxaan isku dayi doonaa haddii la yiraahdo iyagana in difference-ka u dhexeeya aan comparison ku samayno marka haddii aynu isla tagno charts-keena
haddaynu silaagna difference-ka ugu waaweyn ee u dhexeeya amaba comparison ku sameynaba digitalkii binary-ga maadaama sida mid charts-kani binary-gu wuxuu kaga duwan yahay qodobka ugu weyn waxa weeyaan mar waliba oo aad gashid trade haddii entry-ga bartii aad ka gashay haddii uu suuqa ku soo noqdo amaba ku xidhmo candlekaasi oo expiration time-kaagu bartii aad gashay uu ku xidhmo wuxuu ku siinayaa dhexdhexaadnimo waxa loo yaqaano khasaarana kuma gelinayo faa'iidana kuma siinayo markaa wuxuu ku siinayaa zero ama dhexdhexaadnimo ku siinayaa mar waliba oo bilmisaal oo kale bartaa imika suuqu maray haddaan buy u galo waxa uu ku siinayaa bartaa suuqu imika sida arkaysiinba zero buu noo taagan yahay marka waxay ka dhigan tahay mar walba oo suuq bartii uu aad u gashay bartii aad ka gashay baan ujeedaa uu ku xidhmo candlekaas uu expiration time-ka uu ku xidhmo wuxuu ku siinayaa waxa loo yaqaano dhexdhexaadnimada ama zero buu ku siinayaa marka difference-ka ugu weyn aan odhan karana kaasaa wax la taaban karo ugu weyn u dhexeeya waa kaa difference-ka labaad u dhexeeya waxa weeyaan haddaynu soo furano digitalkeenii mar waliba digitalku wuxuu percentage-ka profit-ka aad qaadanaysid waxa uu ka badiyay binary-ga oo imika sadarkiisiinba 87 weeyaan sadarkiisiinba waxa weeyaan kana ii sheeg 87 marka digitalku mar walba wuxuu ka badan yahay percentage-ka profit-kan aanu qaadanayna ayaabaa ka badan ka binary-ga difference-ka labaad ee u dhexeeya waxa weeyaan kii hore opposite-kiisa si binary-ga oo kale bartii aad entry-gaaga ambaba suuqa aad ka gashay haddii uu expiration time-kaaga uu candlekuna ku xidhmo expiration time-kaaga ku dhammaado wuxuu ku siinayaa khasaaro ku gelinaya halku ka hore uu ka ahaa inuuna neutralize ka noqdo ama dhexdhexaadnimo digitalku wuxuu ku siinayaa mar walba khasaare bartii aad ka gashay haddii uu ku xidhmo candleku oo expiration time-kaaga ku xidhmo uu ku dhaco wuxuu ku siinayaa waxaa loo yaqaano khasaare intaas inuu kusoo gabagabayn doona maanta casharkeena ku saabsanaa farqiga u dhexeeya ama difference-ka u dhexeeya forex iyo option iyo binary digital casharkan cashar labaad inta ku kulmi doono waxaad ka tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh